haddaad maqasho muusiga ama heesta qeylanaba wareey oo shaarica la martay gacanta qabsato aad la maraysa shaarica weey labadaas ay kala yihiin horta xumaano marka calanka saa uu leeyahay oo muusa joogtana ku xigtay kan daba dhilif oo ma yaqaan السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنتي وعنا ونكسين إدريهاتي بأخيرتي ذقارقة والله أدبو ما ستين صدح مجا إله بان كدارته وحير ما هاي صدح مجا إله بان كدارته عيد وحن ديقو من هاد عليو أما عيد أنا ديقرب لقنا أنا كردين وما هستي سيدا صومال لماذا وضع دالشادا تضني ماذا شخصيات دا قلبي سمانتا igu garab taagtay oo idiga mahad celinaya qalbi to qalbi intaas kadib akhirinda iska fahantaa muuqaalka iga like iga dulminta halka wax doonaya laba muuqaal oo gaagaaban inaan ka yiri dul istaagno mid rayaan ayuu ku arooraya oo muuqaalkaas waxaan doonaya markii wasaga waa kan inaad ila yara daawataan haddaad maqasho muusiga ama heesta qeylanaba wareey waxaa loo siiyay dad maqasho waxa soo socda baroorta orgi ka weyn wey waxa soo socda wax yar maaha xumaantuna waa laba wax weeye qof kasta oo bashar ah xumaan way ka dhacdaa taa weyn isla garanayna laakiin xumaanta laba ay noqotaayo mid waa mid xumaan aad samaysay oo aanad ugu talagelin ka fakato ama in laga duubay ana dareensanin oo laga duubay oo aadon raali aan ka hay meel la soo dhigay oo ogtay in xumaan tahay xumaantaadina laga duubo meel la soo dhigay taa waxa qaladka koowaad siile cid ado qalad ama xumaan sameeyay cid xumaantaada faafisay ee garan weydo xumaanta qofka qalay dadka islaamka ee muslimiinta xumaan way ka dhici kartaa qofka ceebahooda dadka qariya ilaahayna tiiso astura qofka hadii ceeb ka dhacday aan raali ka ahayn qofka siifafi isagana ilaahay ceebtiisa banaanka ku keeni doona taasi waa taa oo midaan raali aan ka ahayn oo ka dhacday midna waxa weeye mid ku faanaysaba oo shaarica la martay gacanta qabsato aad la maraysa shaarica weey labadaas ay kala yihiin horta xumaano marka way kala xaq jiraan midka hadal mudan ma aha oo midna arkayno qofka inaan u bareerin midna waa midka hadal mudan oo qofka u bareeray weey wayna dadna sida xumaanta oo qofkaas ugu bareeray baraabashada soo galiyay wayna sideed uga dhiidhina dhalinyaro iyo caruur been leeyno baraabashada ina daawatee intan wixii tusnana kulli way arkeen baraabashada way haysataa inaan naano waxan ma wanaagsana ha ku fikirina hana ku hamiina war haye horta rayaan bajaaj markii hore mar weeyid laakiin hadda ma hamarwo saka wada rigsatiin ad ka war haysan ayada iyo qamar sugaani faataxa dadkuna waa calaf oo waxan way dhacdaa dad badan oo habaartamayna wanooga habaarkooduna waa hirkaa dadka habaaraya qoysaska habaarayana in xitaa soo qoray dhawaan bay kala tagayaan waxaan kugu bushaaranayaa suma wallahi saddex magac ilaahay baa ku dhaartay waxaad ummadda dhibaatada aad la jeceshay ilaahay adigana waa ku siinaya oo way ka go'anta ama aakhiraha kaaga go'naato ama adduunyada kaaga go'naatay waxaan oran lahaa dhalinyarada kelmadaha iyo dhawaaqyada fooshuxun dadka u soo qoraya ka fiirsada oo ka taxadira oo dadka isqaba hadallada fooshuxun laqwiga ah aday dib kugu soo noqon karaan ka fiirsada taas waa xiga wax sheegid mid baan doonayaa bartaan dugula wadaago dadkeenu ama bulshadeenu inay qiimo dhacday waxaad ka garanaysaa yaa ugu fiis badan yaa ugu daawasho badan yaa ugu taageerid badan Soomaalideeni kama helayaan waxa macnaha leh sida geed caleen loo ubax guudka qariyo qorraxay qumanay soo boodbood shabkay ugu dhufo waxa ka helayaan kaasi fahmayaan laakiin ma fahmayaan dhamaystiranay quruxdii haweenkay macnaha waxyaabaha qiimaha leh kelmadaha qiimaha leh ya ma fahmayaan laakiin fahmayaan igu soo bood shabka igu dhufo bigdam waxa fahmayaan marka maxaad dad badan ku karan kartaa maxaad taageero badan ku heli kartaa maxaad miidiyaha caan ka noqon kartaa sanadkan way fududay waxaad caan ku noqon kartaa waxaad miidiyaha dad badan ku kasban kartaa inaad tahay nacas war hadaan nacas iska dhigi karayn ama nacas aanad ahayna oo ilaahay aanu ku dhalinina waxaad noqotaa nin waalan oo iswaal sida dhifiq iswaal oo maryaha tuur iyo maamulyoon hada labada shay mid uu sameeyso waxaad noqotaa qofka ugu fiiska badan ugu saameynta badan ugu khatarta badan ugu aftahansan hadaad fanaan tahayna ha raadin ereyan xor leh oo ah
hir soo halaaciyo roob soo da'ayo xareed wada soconaysiyo geedaho magoola iyo quruxdoodii baad leeday waxa raadini waxaad raadisay dad fanaan noqonayso soo haadkan soo raac soo gal safka siriga qabso soo bood igu daba fayl madaxa ruux korutaag bidixda eeg midigtana kuba dar waxa garanaysa waxaas samaysaa bulshadu way macna beeshay maxana bulshadu markay macna beeshana waxa ay rabaan wax macna aan lahayn waa taas horta tusaale ahaan waxaan tusayaa gabadh aanay ka amaan helin haween oo dhan dadka qaarna ay iskuba haystaan manibba manaagba bal muuqaalka ila daawo muuqaalkan dad baa xusrayaan manibba maaha wallahi waa gabadh dad badan way garanayaan dad badan way ku xinayaan yaan tafsham bareeda waxaad jirta muuqaal ay kabaha la dul marayso nashaad dadku waxay aad u xiisaynayaan halka hadba dagaalku uu ka shidan yahay ama dagaalkaas nashaad waa fanaanad Nairobi timi lagu soo dhaweeyay suuq ruux badan aan arkay saaxiibkay Big Bro oo soo dhaweynayay Big Bro ma kala leeyahay magac qiimo leh buu agtiisa ka ahaa ninkii Big Bro oo noqday maxaan skin ma waxaan fidicilka u dhuubtay dhangad buu noqday buulnida tax quruxa maaha laakiin soo waa ku fool xumaaday saaxiibkay Big Bro waxaan arkay aad moodin cuquba ku dhacday cuquba kuma ay dhicin dadka qaar balaama cuquba ku dhacday kuma ay dhicin saaxiibkay jacayl baa ku dhacay ninkana haduu jacayl ku dhaco waa siibanaya caloosha soconaysa ama caloosha dhaqaaqaysa sabab taqaanaan Big Bro aad baa kaaga salaamaya soo dhaweyn qurux badan bay u sameeyeen nashaad oo ku sugan Nairobi hadaba nashaad waxaan ka iyadoo u jawaabaysa oo leh waxaan nin yanaag kala garan waayay baa iga laalaada sida muuqaalka uga jeedaan bayla daawada loo isku dhaxdaadad muujeedin aqligeeda qabta baad arasan ku qoosta haddii calanka saa u wadaliyeen cade oo Muuse joogatana ku xigtay kan daba dhilif oo ma yaqaan habarta hadaba muuqaalka sababta waa kaas wixii inta ka dambeeyay kabaha la isla dulqaatay waxaan ka jiray iyadoo caayaysa inaan aad uga daayar oo hooyo Soomaaliyeed gabadhani oo caruur leh oo hooyo ah oo gabadh Soomaaliyeed ah dhaqankeedana inaan arkin ka dhereegsanahay haddaad aragto qof ay soo agdhigtay qof dan ka leeday mooyee inta kale way cayda arkay iyadoo caayaysa xitaa inaan tirey Nairobi TikToker day sameexa khalid imikana way arkayna marka macnaha dadka without sabab la'aan bay cayda qof aan soo bacaayin qof bay soo qaadanaysaa ama oran karto qofkaas waa fanaan ama waa noocaas cayb iskaga miisaysa waa nooca waa taakaleeto waa saakaleeto bulshadina waxay saameyn bay ka raadinayaanba haddaad soo caydo annagoo kuu soo fadhiisanaya caanimadeena meetaas ka xigta inaad soo caydo annaga kuu soo jawaabo marka waxaan oran lahaa horta bulshada haddaynu aragno wax xun oo bulaha bulshada haysta ama haddaynu aragno shakhsiyaad xun oo xumaan u mooyay umadeedu mooyay wax kale aan garanaynin waxa qurux badan in laga gaabsado haddaynu aragno dad xumaanta ku faanaya oo xumaantii shaarica la maraya oo xumaantii gacanta haystaan aynu aragnana sida rayaan bajaajimkaynu arkayno waxa qurux badan inaynu ka hadalno meel adag ka istaagno oo naano waa bulsho iyo caruur iyo dhalinyaro waxa ku dayana wax wanaagsan maaha talabaad guurka wix la oran jiray imka la casriyay guurku waxa dhaqan wanaagsan buha Soomaalida imka guurkii dhaqan xumay ka dhigteen dhaqan xumo la sharciyeystay way iskuursanayaan dadna gabadhiga ninkii dhar isku eeg bay soo xiranayaan ama shay isku bay soo xiranayaan way isku dhigayaan waxay qornayaan waan isqabnaa waardaas qabtaan meeda ummadda qulubtooda ku ciyaartaan ba madaka dhaqankooda iyo damiirkooda dadka dareenkooda inaad ku ciyaartaan ba haddaad qabtaan meeda ka iskaga baxdaan ba haddaad qabtaan ma gabadhaada timaha u qaawso garan iyo shaar u soo xidhoodnaad shafka soo banaysto kolba saa guri dhigayso leeday marna bushnaheeda iyo bushmaha ku soo dhaweynaysid ba waa guurkeenu naqaanay maaha waa dhaqan xumo la sharciyeystay weeyaan marka xorlaan dhalinyarada waxa isku aroosanaya ay sida dadka ayna caayay maxay amaan heli karnaa inaynu isqabnay kaga gari kaga gari heli maysaan haddaad isqabtaan adaab yeesha dhaqan yeesha hooyo wanaagsan ka dhigaynaanta oo gurigeeda la tag gurigeeda ma haynaad gurigeeda la dagaysidii guri u sameeyo gurigeeda la dago gurigeeda ku hayso oo gurigaaga gabadhaada ku dhaqo gabadhay adiguna nin tayale oo dhaqan leh oo dadnimo leh oo dhaqasha ka go'an tahay oo qadar iyo duruuf kala idin kala kaxayn karto mooyee ka gureeyay macna guurka ka fiirsada guurku waa qiime wax laga fiirsado way wuxuu wax adagna ku burburi kara si adagna waynaad ku dhisi kartaa
laakiin easy game easy go baa wixii si fudud kugu soo gala si fudud bay kaaga baxaan aaba u maasantiin muuqaalka noo leegaraya inta muuqaalka wixii ku mid doona xadiga tiisa amaana Allah